بسم الله. تفضل سؤال. maanta waxaa sharaf weyn noo ah inuu degmada Balcad nagu soo booqdo xogayihii guud ee Soomaali mini football Xaaji Aadan Xaaji Maali anigoo ku hadlaya magacii degmada Balcad mini football Soomaali waxaan aad ugu faraxsanahay in mar badan oo nagu soo noqnoqdo xiriirka cusub ee kubadda cagta Soomaaliya waa maran nagu cusbeen koon naguma aha laba naguma aha taasna ka maamul ahaan shacab ahaan dhalinyaro ahaan isboorti ahaan intaba waa midaan soo dhaweynay aan ku faraxsanahay wax hami cusub iyo rajo wanaagsan iyo kalsooni badan na geliyay waana soo dhaweynaynaa waana wax caalam xiriirka inta uu jiro caalamka iyo wax qabadkiisa markii aan isku fiirinno wax la isla barbar dhigi kara maaha Soomaali mini football barnaamijka kubadda cagta kulli haddana waxaan ku soo dhaweynaa oo joogo gudoomiye ku-xigeenkii Soomaali mini football gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Xasan Bismillahirrahmanirrahim. أنا حسن الحمد لله الرحمن الرحيم. أنا يوم هذا يوم أجا أول في الشغل هذا حل فما لي من فوتبول وها كان لنا دوين اللي سودوي نشان عويها فما لي من فوتبول maamul degmada Balcad kasoo qaybgalayaasha xafladan oo lagu wareejiyayo anigoo wakiil ka ah arrintaasi waxyeelka amniga iyo siyaasadda alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale oo maanta meelaha la saaranyahay ujeedka ugu weyn oo meelaha la isku yimid oo ah barnaamijkan oo mini football oo loogu talagalay in degmada Balcad kaasatan dhalinyaradeeda in lagu horumariyo maadaama barnaamijkan waxaa loo hal abuuray horumarinta dhalinyarada degmada Balcad mini footballna macnaha xogeyadeeda guud kaalin mid leh ayuu ka qaatay waxaan leenahay waxaan ka arkay dhalinyaradeyna oo hamiga ay u qabaan isboortiga mini football taageero weyn ay u yihiin kalgacelna ay u muujiyeen kadibna uu arkay inuu magaaladayna ku soo noqdo waxqabadkiisa iyo wanaagiisa iyo safaradiisa taasna waxay muujinaysaa haddaynu nahna annaga degmada Balcad ka maamul ahaan inaan macnaha aad iyo aad aan usoo dhaweyno aan u jecelnahay dhalinyaradayna isboortiga kalsoonidaas sidaas ayay ku abuurantay dhalinyaradana kolley maantana waxaa jirta xataa garoon oo mini football ah iyo garoomo badan oo markii ay loo yimaadeen kadib oo magaalada laga furo ujeedka dhalinyaradan waxay noqdeen dhalinyaro macnaha ku baraarugi arrimahaas haddana waxaan ku rajo weynahay maadaama arrimahaasi mini football macnaha dhalinyaradayna hami u weyn aqoon xogaha guud waxaan ka sugaynaa hay-addii kalento asiga uu sii sarayso iyo cid kasta oo macnaha barnaamijkaasi ama holahaasi wax ka wadaan inay arrimahaasi taageero oo khaasatan gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Balcad maadaama uu joogo gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Dhexe ee mini football Xasan Waldos waxaan leenahay ka gobol ahaan asagana waxaan ka sugaynaa Balcad Jowhar Aadan Yabaal Adale Warshiikh Mahadey intaasba inuu u sameeyo macnaha gobol ahaan asigoo magacooda matalaya dhiirigelin oo macnaha dhinacaas isboortiga mini football asigoo hore ahaa jiray weligiisa nin jecel isboortiga macnaha una hori jiray nafsadiisa dhaqaalihiisa maskaxdiisa waa ninka keliya reer Balcad runtii haddaan dhaho aan been ka sheegin oo macnaha isku dayo inuu macnaha koox isboorti oo fan gareeyo ilaa aas ilaa iyo ay ku gaaraan qaarkooda heer qaran iyo heer gobol taasna muhiimaddu waxay ka mid tahay inta kalento reer Balcad ahna oo sidii Xasan oo kale camal ah oo dhaqaalaha ilaahay u dhiibay ayaguna waxaan ka rabnaa nin walba inuu koox qabsado oo macnaha barnaamijkan mini football uu kusoo dhaweeyo oo taageero weyn ugu sameeyo
oo macnaha tartan badan ay ka dhacaan magaalada dhalinyaradu waa kanay kolley waa himiladooda iyo macnaha diyaargarowgoodii boqolkiiba boqol way ka muuqataa waxaan leenahay dadweynaha ku nool degmada Balcad macnaha aynu dhiirigelin iyo wanaag iyo fangelin iyo wax walba islaan anayna ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay wax waliba ina liimaanaan السلام عليكم ورحمة الله. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda amniga xogeyaha arrimaha bulshada degmada gudoomiye ku-xigeenka kubad cagiraha gobolka shabeellaha dhexe xasan Bodos iyo gudoomiyaha mini footballka ama kubad cagiraha degmada iyo macallinkii qaranka degmada Balcad shikili hilmaamada kuma jiro wakiilka hay-adaha oo asagana goobta la joogo ururka haweenka kan dhalinyarada iyo dhammaan ciyaartooyda degmada Balcad. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaa kulankan waa mid taariikhi ah runtii sababtoo ah markii aan imaanay degmada Balcad bil ka hor degmada Balcad sidaa la socotaan kama jirin dhaqdhaqaaq sida hadda ugu socda mid lamida kama jirin wax oo habaysan ama qaabaysan ama xiriir qaabeenayo howlaha isboortiga ee ka socda degmada ma jirin markii aan imaanaynay diilada maanta aan qabno degmada Balcad iyo dadkeeda inay geliyeen runtii ma qabin laakiin maanta oo heerka la gaaray horyaalada ay socdaan ciyaarihii ramadaanka ay socdaan facebookooda ama social media uu furan yahay oo ciyaarta lagu qamaamay waxay nooga dhigan tahay in wax weyn oo isbedel ay sameeyeen degmada Balcad iyo dadkeeda waana idinkugu hambalyeynaa taas waxay dhiirigelisay markii la arkay sida isugu duwan tihiin habeenkii markii wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga wasiir ku-xigeenkeeda iyo Somali Mini Football oo wada jiro iyo xildhibaanada deegaanka iyo guddoonka degmada iyo hobolladii waa beri oo halkan fadsiye ka dhigay markii la arkay dad ayaa u soo qiirooday runtii degmada Balcad waxaa jiro macad academy oo la yiraahdo Banaadir Katrina Holm Sport Academy oo ku yaal Sweden oo noo soo marsiiyay degmada Balcad qalabka ay ku ciyaar lahaayeen xulka qaranka mini footballka ee degmada Balcad mahadaas ilaahay ka shukr waxaa iska leh macallin Macow Xuseen Xasan Geedi Abtuu oo runtii sheegay in qalabkan uu yahay mid bilow ah isagana uu ka mid yahay saraakiisha Somali Mini Football ee Yurub qalabkan mini footballka ee degmada Balcad inuu bilow yahay degmooyinkii uu ka arko ama Somali Mini Football ay dhaqdhaqaaq wanaagsan ay ka arkaan la horumarin doona hadda sidii loo shaqeeyo wax walba ay ku xiran yihiin Macow waxaan rabaa qalabka kale iyo waxyaabo kale ee gobolka Banaadir iyo gobolkan iyo meelo kale uu soo wada insha Allah taala haseeshee wuxuu aad idinkaga mahadcelinayaa salaan diirna oo idinku soo faray dadaalka aad wadaan inaa hor usii laba laabtaan insha Allah taala mid Somali Mini Football haddii aan soo laabto degmadan Balcad runtii waxaa ka dhisan xiriir oo kubad cagiraha ka dhisan xiriirkaas kubad cagiraha ma aha oo kaliya sida aan meelo badan ka sheegnay inuu kubadda ciyaaro degmada Balcad waxyaabo badan ay hodob ku taajiro ma aha degmo inay tuugsato dhalinyaradeeda ama aysan shaqaysanin ama ay shaxaad ku noolaadaan ama baagmudo ay ahaadaan mid maaragtay mudan ma aha marka mini footballka oo hogaaminayo gudoomiye Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka ama gudoonkii gobolka oo xaafadiina jooga ama degmadiina u dhashay Xasan Bodos horena idinku kaalmay jiray iyo maanta Somali Mini Football oo garabkiina taagan waxaan jecelnahay barnaamijyada mini footballka in lagu dhex wado qodashada beeraha iyo in dhalinyarada degmada Balcad ka tagaysa ee aadaysa tahriibka inaan ku dadaalno sidii aan u joojinayn halkii iskuulada leedihiin hay-ado badan aad la joogo oo wax badan ay qabahayo Somali Mini Football kuwaas ka mid tahay waxaan sheegaynaa kubadda in la ciyaaro oo kaliya ma taagna waxay u taagan tahay dhalinyarada inay capacity-gooda dhisto inay garaadkooda dhisto inay aqoontooda dhisto insha Allah haddii la yiraahdo garoomada maanta noo tusinayo gudoomiye ku-xigeenka oo noo sheegana waa booqanaynaa garoomadaasi sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah taala waxaan u raadinay meel aan ka contribution aan ku sameeyno wax un baan ka qaban doonaa waxaa kaloo guud taariikhi ah in degmada ay bilaabi doonto horyaalkii degmada oo ay noqon doonto kooxaha divisionska division 1 division 2 iyo division 3 oo aan bilaabi doono goordhow bil gudaheed insha Allah taala haddii la yiraahdo kooxihii qaranka ee degmada inaan isu diyaarsan insha Allah taala cid walba koox walba waxay noqon doontaa ama division 1 ama division 2 ama division 3 gobolka waa la soo kulanay guddoonka gobolkan la soo kulanay
kuwii kubadda cagtaan lasoo kulannay kuwii kubadda cageerahan lasoo kulannay kuwo kale oo cayaaraha fudud loo soo wadaa jiro idinkana qayb un baa ka tiina insha allahu tacaala haddii ilaah yidhahdo ugu dambeyntii waxaan salaan qaas u dirayaa dadkii u dhabar adeegay howlaha mini footballka isla markaas waqtiga gaaban oo shidada badan ka soo saaray maanta la gaarsiiyey heerka arkaysaan dhammaan ciyaartooyda iyo macallimiinta khaasatan waa salaamaya iyo kuwa yaambada wato beeraha qodaha ma ka wado markaan waxaan ka wadaa guddigii hawshaas abaabulayay ee joobkooda ku bixinaya waxaan kaloo rabaa inaan fursadaan kaga faaidaysto Somali mini football ma aha hay-ad lacag international kasoo gasho ama la fangaree ma aha shilinka annaga aan baxsano oo jabkeena aan ka bixino unbaan ku wadnaa shilinka idinka aad ku wadaan balcad ayaad ku wadaan meel wax nooga soo galaan ma laha laakiin haddii aan midowno wax walba waa heli doonaa insha allahu tacaala garoomo waa dhisi doonaa ciyaartooydeenna waxay aadi doontaa sida aad la socotaan November inaan Brazil aadnaan rabnaa insha allah cid walba oo ciyaarta kubadda cagta oo talent xuquuq ayay ku leedahay inay kamid noqoto xulka qaranka insha allah haddii ayda aysan iska diidin waxay kamid noqon doontaa qaranka insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan rabaa inaan wareejino qalabka banaadir Katrina Holland Sport Academy ee soo direen iyo gudoonkooda Macu Xuseen Xasan waxaan rabaa inaan ku wareejiyo gudoomiyaha arrimaha siyaasadda iyo gudoomiyaha mini footballka ee degmada Balcad soo dhawaada aan ku wareejiyo qalabka waxaan ku wareejinaynaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mini footballka Xasan Baldoos oo runtii heer Balcad si buuxda inuu ka dhashay degmadoodana uu degan yahay. Assalaamu calaykum. haddana waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyihii kubad cageeraha ee degmada Balcad runtii waxa aad ka aragteen degmada Balcad hormuud u ahaa iyo wanaagga iyo koobka gobolka Xasan Baldoos iyo xogeyaha guud ee mini football waa maasanyahay gudoomiyaha runtii waxaa moodaa degmada Balcad inay degmooyinka wax badan ay dhaanto sababtoo ah waxaan soo jeestay degmada Balcad in dhalinyaradeeda ay jihayso markii arkeen footballka oo soo taagan runtii ayagana waxay garteen in dhalinyarada tahriibka cajiska galay cajiskaga qaado iyadoo u marayso mini footballka inuu ka dhisay degmada Balcad sidaas awgeedna degmada aan ka dhigno maadaama shay ilaa tag sano cid soo istaagto soo taasi jirin fursad ugu horeysana ay keeneen mini footballka inuu taageero isla markaasna garoon la siiyo carruurta iyo dhalinyarada waa arkaysaan iskuulkii oo garabka lagu haayo deegaankii oo garabka lagu haayo iyo garoonkii oo halkaana waxaa kaloo geesinimo leh oo talaab geesinimo leh ah in dhul beereedkii dalaga laga goosanayo inay ku bixiyeen in kubad lagu ciyaaro degmada Balcad taas waa kanaan ku aragtaan waa dhinacan iskuulku waa kana garoonka waa kana Somali mini football iyo mini footballkiisa Xasan Baldoos iyo gudoomiyaha degmada Balcad mini footballka intaba waxaan iska kaashan doonaa insha Allah taala sida garoonkan wax ugu qaban lahayd waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Ali Guudlaaw Xuseen oo isagana kaalin mugle ka qaatay soo ifbaxa mini footballka ee gobolka waxaan kaloo mahad u celinayaa gudoomiyaha degmada Sanay Balcad waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa oo yani annaga lafteena khayr badan geliyay xildhibaanka deegaanka xildhibaan Qaasim oo runtii laantiis fikradaha qaarkood